waxaanu halkan baaq uga diraynaa suldaanka nabadda ee Sanaag Bari Suldaan Saciid. xaaladda gobolka Salal iyo Awdal oo maalinta ka dambaysa ka sii daraysa oo muddooyinkii u dambeeyay halkaasi ay colaadi ka taagnayd ayaa waxa maanta ka hadlay xisbiga ka hoose adag uga hadlay xaaladaasi sidoo kale fariin u diray ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo suldaanka guud ee beesha Warsangeli waxaana ka mid ah hadalladaasi. waxaanu halkan baaq uga diraynaa suldaanka nabadda ee Sanaag Bari Suldaan Saciid. waxaanu leenahay xisbigu leeyahay isagoo og taariikhdii hore ee nabad raadinta ee dadka gobolka Awdal iyo Salal ay ku lahaayeen Soomaaliland waad gabteen kaalintiinii. waxa maanta la idinka baahan yahay fadhiga ka kacdaan ha sugina xukuumad ku fashilantay abaabulkiina ku fashilantay in iyadu shaqadeeda gudato idinka maanta la idinka doonaya in la isabaabulo. xukuumadeennu markii uu soo baxay kacdoonka iyo buuqa ka taagan gobolka Awdal waxaynu isla qirsanahay inaanay u maaraynin si fiican. maamul xumadii halka ka dhacday waxay sababtay inay isu bedesho dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmara bulsho walaalo ah oo intii aadamuhu oona wada degayay inan iyo abtigiya inan iyo seedigiya صدق iyo inankiisii isku ah. xisbigu waxa xukuumadda u soo jeedinayaa ku dhaliilayaana inaanay qaadanin doorkii loo baahnaa ee ahaa kow isticmaalka xoog ay dadkaas ku kantarooleyso dhibta dhex maraysa. laba isticmaalka diblomaasiyad iyo xeelad hufan oo lagu joojinayo dhibaatadaas. saddex adeegsiga dhaqanka iyo waxgaradka dalka. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد. دمان شعبك Somaliland ميل كستوي جوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شر حسبك كاه وسعودي معلمي وجود بيجي حرون ترحيه حسبك ولا جو قيمين يجي xaaladda nabadgeliyo ee gobolada galbeedka oo maalinta ka dambaysa aad moodo inay ka sii baxayso faraha iyo kantaroolka waxgaradka iyo xukuumadda. xisbigu markuu xogo badan raadiyay markuu baaray siday wax u jiraan intii awoodiisa ahayd xisbigu waxa uu go'aansaday maanta inuu shacabka Somaliland la hadlo. saddex aag buu xisbigu xooga saari doonaa kulankan. kow doorka xukuumadda iyo xaaladda ka taagan gobolada galbeedka gaar ahaan gobolka Salal iyo gobolka Awdal. kaalinta waxgaradka kale ee reer Somaliland oo meesha ka maqan. waxa kaloo uu xisbigu baaq u diri doonaa cid kastoo arrintaasi qusayso oo geeska Afrika ku nool. waxaanu xisbigu fariin codsi iyo tanaasul u diri doonaa hoggaanka dhaqanka ee labada dhinac ee fidnadaasi ay dhex taalo. ugu horreyn shacabka Somaliland ee sharafta badanow qaranka waxa mas'uul ka ah hawlihiisa iyo dhaqaajinta hawl maalmeedkiisa xukuumaddii aynu igmanay ee aynu u dhaarinay inay dalka maamusho 13 December 2024. xukuumadeennu markii uu soo baxay kacdoonka iyo buuqa ka taagan gobolka Awdal waxaynu isla qirsanahay inaanay u maaraynin si fiican. maamul xumadii halka ka dhacday waxay sababtay inay isu bedesho dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmara bulsho walaalo ah oo intii aadamuhu oona wada degayay inan iyo abtigiya inan iyo seedigiya صدق iyo inankiisii isku ah. waxay dhibaatadaasi dhex martay dad masaafo dhul ah oo boqolaal kiiloomitir jooga isdhex mara isdhex degan xoolaha wada daaqsada biyaha wada cabayay sida taariikhdu xusaysana aan weligood fidna inta leeg dhex marin
inta mujtamaca Soomaaliyeed iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo dhami ay caanka ku ahaayeen gacanka hadal aan joogto ahayn xisbigu waxa xukuumadda u soo jeedinayaa ku dhaliilayaana inaanay qaadanin doorkii loo baahnaa ee ahaa kow isticmaalka xoog ay dadkaas ku kantarooleyso dhibta dhex maraysa laba isticmaalka diblomaasiyad iyo xeelad hufan oo lagu joojinayo dhibaatadaas saddex adeegsiga dhaqanka iyo waxgaradka dalka waxa halkaa muuqata in qorshe la'aanta xukuumaddu ay gaadhay in ay tahli kari weydo inay xitaa ummadda la hadasho siday wax u jiraan inay xukuumaddu tahli weydo in hoggaankeeda u xil saarnaa arrimaha nabadgelyadu aanay gobollada galbeedka maanta joogin oo daraad iyo shalay wixii ka dhacay la yaab ay ahaayeen xukuumadda waxaanu leenahay hore ayaad arrintaa ugu fashilanteen madaxweyne mas'uuliyadda qaranka adaanu lagu dhaariyay waxaa lagaa codsanayaa xisbigu baaq dheer kuugu soo jeedinayaa wax kasta oo la hayo waa in dhulka la dhigaa haddaad gudan weydo waajibka mas'uuliyadda adigaa qaadanaya dibna kuu sii saarnaan maysee waa lagaa tashan doonaa insha allahu tacaala intaa waxa dheer waan halkan baaq uga diraynaa dhaqanka iyo waxgaradka beelaha gobollada dhexe ka soo bilow gabiiley ilaa iyo sanaag waxaanu halkan baaq uga diraynaa suldaanka nabadda ee sanaag bari suldaan siciid waxaanu leenahay xisbigu leeyahay isagoo og taariikhdii hore ee nabad raadinta ee dadka gobolka Awdal iyo Salal ay ku lahaayeen Soomaaliland waad gabteen kaalintiinii waxa maanta la idinka baahan yahay fadhiga ka kacdaan ha sugina xukuumad ku fashilantay abaabulkiina ku fashilantay inay iyadu shaqadeeda gudato idinka maanta la idinka doonaya in la isabaabulo waxaan xasuusinayaa dhaqanka gobolada ah maalintii 29kii maalintii 93kii maalintii 795kii reer Awdal dawlad may sugin reer Salal dawlad may sugin iyaga ismaamulay 29kii jidka berberiye Hargeysa isagoo xidhan oo inuu isu mari weynay Sheekh Muuse Jaamac Goodaad Ilaahay godka ha u nuuro Xaaji Daahir iyo raggii ay hogaaminayeen xaggayga dambe oo imaka fadhiyo Cabdilaahi Ibrahim Habane ayaa wadada maray xabad kamay baqanayn dayday kamay baqanayn daddilayna kamay baqanayn naftood horeyaal bay ahaayeen waxay ku guuleysteen inay wadada furaan waxay ku guuleysteen inay isu keenaan maanta waxa muuqatay inay ku guuleysan weydeen inaad kaalintoodii buuxisaan waxa la idinka waayay suldaan Sheekh Muuse Goodaad oo kale waxa la idinka waayay Xaaji Daahir oo kale waxa la idinka waayay raggii la socday oo kale waxa la idinka waayay Ismaan Cali Bilo oo kale walaalayaal waxaanu maanta idin leenahay hadal ay sidaada ma harin waxay arrintu maraysaa amba inaynu gunnimo qaadano oo Hargeysa la fadhiyo Burco la fadhiyo Sanaag la fadhiyo amba in gurmad la galo oo dadka walaalaha la dhex galo Soomaalidu gob waxay ku tahay waa la garanayaa marka la tago weligood bay imaka telefoonada marka lagu wada hadlayo go'aan laguma qaato goobta inaad tagtaan inaad guul ka keentaan amba ku soo geeriyootaan baa la idinka doonayaa dhaqanka reer Soomaaliland kale waana baa ku socda dhaqanka reer Soomaaliland waxgaradka ganacsatada siyaasiyiinta madaxa bannaan waxa kale oo xisbigu halkan u soo jeedinaya baaq dawladaha dariska ay u horeyso dawladda Itoobiya gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo uu ku xigo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle dadka halka isku dilaya saddexda dalba way wada yaalaan haddii laga wada shaqayn waayo nabadooda colaadaasi meel ku ekaan mayso mid dayal u dhamaatana noqon mayso waxaan codsanaynaa dhaqanka iyo dawladaha halka jooga iyana inay gacan ka geystaan oo ay yareeyaan
dhibta halkaa ka dhacaysa intii taagooda iyaguna gacan ka geystaan dhaqanka dalalkaa jooga iyo dhaqanka Soomaalilaanta kala jooga gacmaha hays qabsadaan baanu leenahay ugu dambayn xisbiga ka waxaan u soo jeedinaynaa walaalayaal labada beelood ee dirirtu halkaa ku dhex marayso waxa taagan suugaantii Soomaaliyeed ee ahayd wax yaroo la maarayn karo ayaa midhiyay door anaa mudan anaa midha ku dheer lay hormari maayo waa waxa makaayuhu ka dhacay maalintii hore mar uun bay masiibadu dhacdaa maanta kala hooyda haddaad intaa qaadan weydaan nin mantaanta loo jaban tahay oo meel ka kici waayay uun baa idin dambaysa maalin walba seedigiin baa dhimanaya sodongiin baa dhimanaya baaqaanu idiin soo jeedinaynaa waxa weeye walaalayaal dhiigga dhalinyarteenna odayaasheenna isnaca bulshadeenna dhex maraya halkaa ha inoogu ekaato waxaan u soo jeedinayaa madaxda dhaqanka ee ugu horeeyaan ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa oo ugu horeeyaan ugaaska beesha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid maanta ayni cimri iyo cibaado idin hadhay ma jiro ninka maanta bilaaba inuu nabad ku dhawaaqo gudnimo ma qaadan ee gobonnimo qaatay hal idinka helo inaad nabad ku dhawaaqdaan maanta idinku xisbiga ka wuxuu diyaar u yahay inuu sii wado inuu qaybtiisa ka qaato xiisadda iyo gurmadka xukuumaddana waxaan u soo jeedinaynaa haddaad fashilanteen shirweyne qaran qabta oo ummadda loogu talinayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh